سأل الصعطان صدق سنة كور يسبدل باقي داعي ذلك يسبدل كاس deegaanka Soomaalidu dadka ka faa'iiday baan ahayn inagu isku suuq gama dhicin dalka oo dhan meelood dad horli ay yimaadeen oo isbedel horli oo ka dhashay oo waxay dadku tabanayaan wax saddexdaas sano la xiriira uu yahay laakiin wax 7 sano ka horreysay dadkina leeyihiin baan haysta leeyahay aan ahayn way jiraan sida deegaanka Soomaalidu kale sanad ka hor dagaal baa ka bilowday dalka dagaalkaas oo maanta sanad jirsaday marxalad kale fara badan soo maray bishii August waxa laga soo baxay gobolka Tigray loo oran jiray oo ciidamada ka soo baxeen duruufihii jiray awgeed bishii ku xigtayna iyagii baa weerar soo qaado qabsaday qaybo kamid ah gobolka Xamaarada iyo Anfarta xogta guud ee la xiriirta dagaaladaas maadaama baraha bulshada taalo oo xogta guud waa wax saacad iyo daqiiqad qof walba meesha uu fadhiyo telefonkiisa uu kala socdo weey halkay marayso anagu waxaan aaminsanahay in Tigray soo qabsada wadan ma ahayn soo laabta waayo inay ka waantoobayaan fikirkoodii hore ee ahaa dadka idinku dawladda u sameeyay dadku waxay soo sameystaan la xaajooda inay ka waantoobayaan ma qabno shakiga noocaas ah waxa si cadeynaya xalay wixii dhacay Washington baa si cadeynaya in xalay aad sabab dadku la saxeexdaan waraaqo intay u yeedhaan yiraahdaan kaalay oo waxa urban sameeyay Ethiopia Federalist League la saxeex shakiga aan qabiyahay meena waan toobine way ku siin daaladii Soomaalidu dad ma aha cid aan wadano man geen karnaado inuu fikirkaas ku jiray cadahay wax soconayna ma annaga waxaan oo qorshaysan markaa in deegaan ahaan maadaama iyagu ay deegaan leeyihiin aan deegaan ahaan aanan ogolaanin cid dambe oo sabab timaada oo halka maamul soo dhista ama ciidan keenta qowmiyadeed ciidan qaran oo heshiiyo mooyaan ciidan qowmiyadeed oo socda oo halkan soo gala in la dagaalamo ay noo qorshaysan waxaan aaminsanahay inaan haysano xoog lagu filan oo Tigray aan ka yarayn oo qabsan kara saadaraadid aroorta Tigray waa sabab ku socda leeyahay waxa ogaataan in Soomaali sabab ku socotaan aad maqlaysaan oo galis oo la galayo oo intay jilahad dawlad lagu noqdaan oo dabreesid qabsadaan oo xirooyinka qabsadaan ay taangiyo soo qaataan ay diyaarado soo sameystaan iyo dawladda lagu soo noqoto jijiyo ku dagaalamo maray dhacin inta ogaataan taas ayana loo go'aansan diyaargarowdeedna waan wadnaa ee dhaqaaleedna walba saadada wax laga boqo wax laga cabsado toona ma jiraan haba yaraatay marka fahal la'aanta mooyee wax dhibaato ah oo inuu hareeraysan runtii ma jirto taas waa dhinaca diyaargarowda xagga xukuumadda dhinaca siyaasadda in hay'adihii dawliga ah sidoo u shaqeeyaan arrintan lagu dhawaaqay hadda xaaladda degdega ee dalka si guud baa lagu dhawaaqay laakiin anaga deegaankana xaalad degdega wax nagu kalifaamay jiraan marka inaan wixii xumaanana iskaga ilaalino arrinta xaaladda degdega maadaama awood dheeraad ay nasiinayso aanan ka badbaadina oo aanan u adeegsan xaaladda degdega balaya aan jirin inaan anagu ku abuurino ama dad aan ku ugaarsanin ama urro ku ciqaabin inaan iska ilaalino baa anaga loo taal hadda xaalad waa caadi balaya ma jirto deegaanku waa sidiisii dadku inay si ahaayeen faakaysiga ku jiraan laakiin ciddii awal hore shuruucda iyo nidaamka iyo iyadoo burinaysa ku afgabaadsan jirtay maxkamaddu sida ma oran iyo waqad baan haysta wixii cidii ahayd haddii caddayn lagu helo la iskaga qabto iyadoo lagu gardaroonayn ma wada adeegsan doonaa dhinaca kale in ilaa duruuftu keenayso dhaqaaqi dhaqaalaha inaanan xanibin isagana wadooyinka la dhiso biyihii in la sameeyo mashaariic Sacuudi inay socdaan way dadku siyaasadda mucnaa noloshina way socotaa dhaqaaqa dhaqaalaha dawladdu ay wadana qayb buu ka yahay deganaanshaha deegaanka laftigiisa marka miisaaniyihii iyo dhaqaaqi wixii loo xeeyo shaqooyin kale noo yaalo abaarahan hadda daawo iyo ka jira iyo meelaha kale ilaa isniinta aan ka fariisan doono in dadka gurmadkiisii iyo shaqadiisii wixiisa loo wado si caadi ah u shaqeeyno inaanu masiibo ka dhigano dagaal baa socdo iyo masiibo jirtay oo aan shaqooyinkii waajibaadkii noo yaalay aan qaban ma aha dawladdu waa in isbeddelka hadda la siibay dhaqaaq fiican iyo xafiisyadii waxa ka muuqda sidii hore iska duwan dhinaca bixinta xoogga la saaro dhinaca diyaargarowga arrimahaas aan ka oran lahaa diyaargarowga waxa qayb ka iyaduna wacyigelinta shacabka iyo wada tashiga oo ah tan saaka aan halka u fadhino inaan sii wadnana ay loo baahan yahay marka dabaylo siyaasadeed ay bilowdaan deegaankeena waxa dhaqan noo ah in
laga hadlo aan tashanno aan midowno aan wada hadalno aan isu nimaadno aan qamaha isqabsanno waxaan taa ku sheegayaa kow maanta Ethiopia siyaasad kama socotee dagaal baa ka socda xabad baa la isu wataa qoryaha la isla dhacaya kolkaasoo kale cadow iyo garab baa la kala yahay mucaarad iyo muxaafid lama kala معارض المحافظ واتي هذا دورشي والي بيتو كله واتي هذه دورشي تو كفي عن سي قبل لهين انت لا ترتبو او لس دلعيو مدحيوها سوخميه لا يراهدو كوكا دنبه قفكي غوليست انت صندوق لوغو ريدو لس خبسوق عنت السال لا يراهدو يا معارض المحافظ يراهد مرحله معارض محافظ كوا تاويه مرحله حبد لا سووتو وتغري waxay qabsadaan ay ku dilayaan kala socdaan oo ku leeyahay xageed galaysa oo ku dilayay shay noolanaysa cadow aad is haysaan iyo cid garab kuwa uu dadku qaybsan yahay kolkaasoo kale marka in lagu maxaafsado mucaarad madaxweynaha adaa oo sida hadda maadaan ka socota meelaha laga wado ujeedada leeyahay waa isha doona mucaarad muxaafid qacanta isqabsan horta isqabsan karnaa marka hore koow su'aal aan isweydiinay anagu ra'yi jiro waxaan ku eedeynaa faham darro siyaasadeed oo aad u ballaaran 40 sano iyo ka badan inay keentay fursad kasta oo timaadeen si khaldan u fahmaan fursad kasta marka maadaama uu faham darro iyo taxliil darro siyaasadeed ay jirto oo dadka raagaysay dadka haddana waxa lagu leeyahay wada tashano saasay tahay kaadi badan oo lagu magaala la yidhi ila ala cid wada tashi diyaar u ah in la fariisto diyaar baan cid walba waliba meel fagaarayaal odayaasha iyo guurtiyo jooga in lagu wada hadlo oo waxa lagu midoobayo waxa lagu wada hadlayo si cad ay ahaadaan